اللهم صل على سيدنا مولانا محمد waxaan idinku salaamayaa dhamaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu waxaan si gaar ah u salaamayaa dhammaan wasiirada halkan fadhiya xildhibaanada cid kasta oo title ku fadhida halkan anigoo aan idin kala guraynin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxa kale oo salaamayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay xafladan runtii qiimaheeda aan halkan lagu soo koobi karaynin caawa oo aan laga sheekayn karin qiimaha iyo dareenka iyo wanaagga ay xambaarsan tahay ayaan idinku salaamayaa waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa dhalinyarada quruxda badan ee ka soo qayb gashay dhammaantiin anigoo ku hadlaya afka dalada haweenweynaha nagaad ee soo qaban qaabisay xafladan aadka oo quruxda badan leh waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada runtii haddaan dib u yaro midhicsado amba aan isyaro dul taago xafladani waxay maanta daaran tahay waxaynu caawa halkan ku gardaadinaynaa ugu wanqalaynaa ugu dabaaldegaynaa buugga ay qortay Iron Lady of Somaliland runtii adna aadan waxaan leeyahay caawa oo dhan ilaa intuu waagu ka baryayo haddaynu isnaahno taariikhda adna aadan ka sheekeeya waxaan biliif garaysanahan rumaysanahay inaynaan soo koobi karahayn way ka weyntahay aadni waxaan odhan karaa wax buug iyo 2 iyo 3 toona taariikhdeeda lagaga sheekeeyo waxaan leeyahay runtii waxa ay ka soo qayb qaadatay markaynu ka tagno taariikhdeedii hore amba waxbarashadeedii oo aan runtii anigu imika ku laabanayn oo buuggeedaasi wax badan ka taabtay amba Soomaaliya iyo dadkii hore markaan ka soo gundagado ee aan Somaliland soo dultaago 30 sanadood ay Somaliland dhisnayd adni maxay Somaliland ku soo kordhisay adni Somaliland waxay ku soo kordhisay horumarinta caafimaadka gaar ahaan dhakhtarka weyn ee u dhistay haweenweynaha amba hablaha reer Somaliland si caafimaadkooda iyo tarankooda runtii loogu ilaaliyo adni waxay ka soo qayb qaadatay dhisidda iyo horumarinta Somaliland runtii waxay ka soo qabatay xilal kala duwan Somaliland oo ay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda iyadoo kabaha u gashatay inay Somaliland itiraafkeeda soo dhaweyso ilaa imikana ay wado marka waxaan leeyahay adna waxaan leeyahay runtii waa role model aynu ku dayan karno waa ilaysi noo baxaya oo aynu daba socon karno waa faynuus aynu eegan karno oo inan kasta oo han leh hadday tahay hanka horumarinta hadday tahay hanka maxay haytay siyaasadda hadday tahay hanka nafteeda ay dhisayso runtii waxaan odhan karaa waa role model Somaliland woman oo aynu dabageli karno dad badan ayaa isweydiinaya amba isleh hablo badan oo halkan fadhiya iyo qaar kale oo maqan waxay leeyihiin talo goormaan aad noo kala noqon aniga kamida waan higsanaya haddii wadku idaayo inaan maro dariiqa ay aadni soo martay haddii wadku idaayo waxaan higsanayaa waana ii muuqataa runtii waxa ku dhiirin gelinaya markaad aragto taariikhda dib u milicsato haweenka Somaliland taariikhda dheer ay soo mareen yaa ka soo dhaxbaxay baad leedahay runtii way badan yihiin hablaha ka soo dhaxbaxay laakiin marnaba ma gaadhayno umana dhadhawin halkay aadni ka soo qaaday iyo halkay maanta marayso laakiin we try our best waxaanu isku dayaynaa inaanu aadna daba cararno oonu daba qabsano toobkeeda sidaanu u daba cararaynana waxaan u malaynaynaa inaan ku faynaynaanu gaari doono
waxaa kaloo aad u sii dhiirigelinayaa runtii hablaha yaryar ee jaamiciinta ah ee runtii caawa halkan fadhiya amba kaba maqan inay ku fikiraan inay noqdaan dad caan ah oo dunida wax ku soo kordhiya hadday tahay Somaliland iyo hadday tahay lafahoodaba waxaan leeyahay runtii oon si gaar ah u salaamaya bahweynta haweenka waxaan si gaar ah u salaamaya hablaha wasiirada ah oo uga yara eexanaya ragga wasiirada maadaama ay hableeyihiin caawa gabadhna loo dabaaldegay igama aha inaan ragga wasiirada diidaya laakiin waanu idinka yarnahayo sidaa darteed baan salaan qaaliya labada hablood halkaas soo fadhiya hindi way maqantay waa Shukri iyo Yurub Habiib iyo hindoon iyadana ma laha aan caawa fadhin intaba waxaan leeyahay waa inaynu kabaha gashanaa waa inaynu wax badan qabanaa waa inaynu ka muuqanaa golaha dhinacyada faraha badan ee Somaliland ee talada dalka runtii waa inaynu aad uga dhex muuqanaa waxaan soo dhaweynayaa dhammaan hadalka ma badinayo furitaan bay iga ahayd laakiin markaan dumarka iyo hawlahooda arko ayaan yara mirqaaman yara taraara runtii waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada buugaagta halkan taalo xunman caawa inaan xabad kooleyno la isku laynay oo la wada iibsan doono sababtoo adnaa qortay adna waxaan leeyahay adna hambalyo waan ku ducaynaynaa halka aad maanta gaadhay inta naftu mawdku ka maqan yahay waxaan u maleynayaa inay halganka halka ka sii wada doonto oo ay ku jirto itiraafka Somaliland oo ay ku jirto horumarinta haweenka iyo dhalinyarada aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada